اللي يلي يلا يلا يفصلني وفراني ضيعي وقاسو براني بالشر وبالغير قالوا لي عدي تطال براني بالشر وبالغير. الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. ما ogtahay dayax gacmeedyada kolka ay doonayaan inay hawada sare ay galaan ama atmosfeerka ay galaan inay u baahan yihiin iftiin ama albaab ay ka galaan. albaabka kaliya ay ka galaan ee u furan waa dalkeena, waa berbera meesha la yiraahdo meel ku beegan ay ka galaan atmosfeerka. meel kale ay ka geli karaan ma jirto. waa waxa ay ugu soo ordayaan shirkadahan iyo maartay ciidamada ay u doonayaan inay saldhig uga dhigtaan accesska kaliya ama albaabka kaliya ee atmosfeerka sare loo aadi kara ayaa wuxuu ku beegan yahay berbera ayuu ku beegan yahay. albaabka aad arkaysaan mooyee meel kale ay ka geli karaan ma laha. khariidada berbera markay isku soo beegaan ayay aadaan hawada sare. waa ka khariidadii berbera si wanaagsan u eeg, waa berbera. allah inoo daayo. adduunka oo dhan ayaa maaragtay usoo kala orda. geeskan yar aad arkaysaan waa dhul barakaysan, waa dhulkii udgoonka, waa dhulkii ay odhan jireen dhulkii ilaahiyada. waa dhul ilaahay noogu nimceeyey waxyaabo badan. haddaba hawadaas sare markii la gelayo waa nimcada ugu weyn. meel kale oo ku beegan ay ka geli karaan ma jirto. way ku hungoobeen berigii ay isku dayeen baabil halka ku beegneed inay ka galaan, way ogaayeen. haddaba baabil waxay ahayd ciraaq bay ku taallaa. waa halkii maaragtay dagaalkii duufaantii lama degaanka ay u bixiyeen desert storm ay ku qaadi jireen. aad bayna ugu baaba'een. barashuudyo badan bay kusoo daadiyeen si uga gungaaraan bal sirta weyn ee taalla baabil oo ah labadii malag oo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay inay halkaa ku xiran yihiin oo suuratu baqara ku jiraan ee la odhan jiray haaruud iyo maaruud. marka isku fiiri maabka waxaad arkaysaa kan kacbada way awoodi waayeen. mucjisooyin fara badanay ku arkeen inay ka galaan oo ayagaa ku baaba'ay oo xataa waaba la waayey qaarkood in badan oo ayaga ka mid ah maca diyaaradahooda maca waxooda waa la waayey. kilibyo hore aan hore usoo dhigay ayaan kaga hadlay. baabilna dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmeen. waayo 2500 oo ciidan faransiisa calooshood shaqaystayaala ayaa baarashuud ay kusoo daadiyeen magaalada baabil si ay u galaan. waayo ayagoo kaamil ah wax yimid maba jirto. waxay cadi ugu soo go-een hawadaa sare intay soo socdeen way qariyaan. waa tii sababtaasay ahayd aljaziira looga burburiyey saldhigii ama xafiiskii ay ku lahayd magaalada baqdaad ay ku lahaan jirtay. haddaba berbera waa accesska keliya ama albaabka qura ee u furan inay spaceka ay ka aadaan dayax gacmeedyada dunida oo idil, ama maraykan ha ahaado ama faransiis ha ahaado ama chinis ha ahaado ama ciddu doono ha ahaado. way samaysan karaan, way leeyihiin, laakiin hawadooda toos uguma geli karaan atmosfeerka oo sida aad arkaysaan uma soo sawiri karaan ilaa ay berbera ay ka dhex baxaan oo albaabkaas ay helaan mooye. haddaba dhulkaas qaaliga oo nimcadaas ilaahay nagu manaystay baanu haysanaa ma aragna. haddana waaba kasii jeednaa wax kale aan aragnaa. innaga unbaa is aragna. innaga intaan isku maqnayn oo aan isku mashquulsanayn baa inagana laynagu mashquulsan yahay. marka hurdow toos, dhalinyaroy toos, aqoontii u baraarug, aqoontii u toos. maxaa lagugu soo ordayaa? maxay dadkan ay kaa raadinayaan? waa intaa wax kala maaha, wax kale lagaa dooni maayo. ضيعي وقاسو براني بالشر وبالغير.